jimco wanaagsan ramadaan kariim baanu dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aynu ku bilownaya shirka wadatashiga ee dhinacyada federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada uga socday magaalada Garowe ayaa maanta galay maalintii lixaad iyadoo aanay jirin weli wax natiijo ah oo ka soo baxday shirkaasi sida warbixintan ku eegaya wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb oo sidoo kale mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe oo ka hadlaya sida ay u warkaan shirkaasi halka ka socda. kulanka oo qaatay waqti badan iyo aamusnaanta madaxda wada hadlaya ayaa keenay shaki badan iyo in ay soo baxaan hadallo badan oo tilmaamaya in madaxda ay isfahmi la yihiin. shirka dhinacyadan u socda oo maanta galay maalintii lixaad ayaa dhaca inta badan xilliyada duhurkii iyo sidoo kale kadib marka ay madaxdu soo tukadaan salaada taraawiix, waxaana dadku ay ka muujiyeen walaac kulanka oo sii daba dheeraaday. magacaygu waa Saciid Cabdiraxmaan Xasan. shirkaas waxa uu arkaa inuu yahay shir fiican oo aayaha iyo mustaqbalka dalka laga tashanayo, laakiin waxaan yaro dhalin lahaa madaxda dawladda dhexe weligeed ma dhicin taariikhda shir Soomaali intay dhexda ku wada hadasho 7 maalmood socda 4 maalmood 3 maalmood la wada hadli jiray, qodobo lagu heshin jiray, wixii la isku raaci jiray, dhaqan gelin jiray. jimcaha maanta jimcihiisa baheed maalintii ra'iisul wasaaruhu yimi ilaa maanta wax maanta leeri waxaas lagu heshiiyay waxaas socdana ma jiraan. maanta waxa maqlaynaa madaxda maamul goboleedyada qaar baa laabanaya magaalooyinkooda ku laabanaya, la isfahmi waayay. ma jiro ajandaha shirka oo madaxda ay la wadaageen shacabka Soomaaliyeed oo isha ku haya kulanka oo aad moodo inuu ka duwan yahay kuwii hore ee dhinacyadana ay hore u yeelan jireen, marka laga reebo qodobo si hoose u soo gaaraya saxaafadda oo tilmaamaya in laga doodayay arrimaha doorashooyinka soo wajahan khilaafka Galmudug iyo dawladda dhexe iyo dhinacyada awood qaybsiga iyo kheyraadka doodaasoo xoogeeda ka imaanaysay dhanka maamul goboleedyada qaybto. ilaa shalay galinkii dambe waxaa soo baxayay in khilaafku uu sii xoogaystay, madaxduna isku fahmi waayeen ajandayaal kala duwan oo dhinac walba uu doonayo inuu marsiisto dhanka kale, waxaana aamusnaantooda ay sababtay in bulshada ay u qaataan sida ay u fasirtaan halka ay wax marayaan. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waxaa la yidhahdaa Idriis Absaaq Maxamed, degan magaalada Garowe. shirkan oo aad baan usoo dhaweynaya horta dadku markay hogaamiyaal yihiin inay wada shiraan oo wixii la isku hayo ay miiska soo saaraan, shacabkana ay u sheegaan, waa wax aad muhiim u ah. laakiin khilaaf joogto oo ayaga dhexdooda ku kooban hadday tahay wax miro dhalama, laakiin hadday khilaaf danta Soomaaliya ah, aragtida mid walba inuu ku hogaamiyo uu rabo waa mid danta ku jirto. awoodda Soomaaliyana waxaa loo dhaariyay dawladda Soomaaliya, inkastoo awood qaybsi iyo maamul goboleedyada ay danta Soomaaliya ay gashay, haddana danta ay gashay dawladda Soomaaliya iyadoo awoodda dhan leh inay qaybaha hoose ay u dhag raariciso ayaa loo baahan yahay maamul goboleedyada sida awoodaha federaalku uu qabo. walaal magacayga marka koobaad waxa la yahay Saleebaan Cabdiqani Cawil. neew shirka arrin muhiim ah u arkaa, dadku waa isqabtaan, hadday isqabtaana waxaa muhiim ah inay wada hadlaan oo wixii la isku qabtay laga tashado sidii xal looga keeni lahaa. waliba anigu shirkan muhiimad gaar u kalaan u sii hayaado awal hore markii madaxdii hore iyo maamuladii hore isqabtaan dalal kale ay tagi jireen. waxaan ku codsanayaa shacab madaxda ama maamul goboleedka ha noqoto ama kuwa federaalka ha noqdeen in la eego waxa danta shacabku ku jirto oo aan qof waliba dantiisa gaarka eegina tacaamka la fiiriyo, maadaama dadkan dad soo daalay yihiin, shacabkani una baahan yihiin dawlad midaho aan khilaaf iyo waxba dhax oo lisayno hore ugu socono. marka maamul madaxda iyo maamulka shiraya ha ku tashadeen inay shacabka dantiisa ku hogaamiyaan. ma jiro ilaa iminka wax natiijo ah oo ka soo baxay shirka socda 6 maalin. shirkan waa uu ka duwan yahay kuwii waayihii ugu dambeeyay dhex mari jiray dhinacyadan, waxaana uu yahay mid u dhaxeeyo madaxda sare oo keliya, oo waxaa meesha ka baxay in wasiiradu ka doodaan kadib is aragga madaxda waxa la isku hayo kadibna soo saaraan qodobo heshiis lagu yahay, waana tan keentay in 6 maalin madaxda ay gaari kari waayaan xal ama ay ku heshiiyaan shirka u socda. dadka qaybtood ayaa aaminsan in maanta aan loo baahnayn in xoogga la saaro dimuqraadiyadda. waxaan ahay Cabdirasaaq Axmed Cali. walaalo waa fiican yahay in la shiro oo la tashado, laakiinse waxaan u arkaa anigu oo aaminsanahay ilaa sharciga Ilaahay loo noqdo oo xukunka Ilaahay la qaato oo dimuqraadiyadda tan iyo waxaan lagu wareegaaleysanayo ilaa laga hadho Ilaahay la isku xidho inaan waxba ka hagaagin. tan iyo intii uu socday shirka 6 casho maalin kasta dadka waxay u qabeen in maanta ay tahay maalinta ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxdan, laakiin ma noqon, waana uu dheeraaday wada tashiga. marka laga soo tago dadka qaba in shirku uu hareeyay khilaaf, haddana dad kale ayaa qaba kulanka oo dheeraada in uu yahay mid soo afjarayo khilaafka joogtada ee madaxda Soomaalida. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
dhinaca kalena shirkan ayaa noqonaya kii ugu waqtiga dheeraa ee ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana wax badan la iska weydiinayaa waxaa la isku mari la-yahay iyo caqabadaha shirkan ku horgudban warbixin ay arrintaasi ku eegeyso wariyaheena muqdisho zaynab abuukar ayaa idiin haynaa. shirka u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa galay maalintii 6aad waxayna dhinacyada ka doodayaan arrimo ay ka mid yihiin qodobka 11aad ee dastuurka oo qeexaya wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada awood qaybsiga arrimaha kheyraadka iyo arinta dooda badan dhalisay ee sharciga doorashada ee 7 ka hor ansixiyeen golaha wasiirada iyo guud ahaan sida loo wajahayo doorashada iyada oo sidoo kale la isku hayo sharciga batroolka oo haatan horyaala baarlamaanka Soomaaliya waana qodob xitaa maamul goboleedyada ku dhowda ay ku kala qaybsan yihiin. xildhibaan maxamed cumar dalxa oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa ka hadlaya aragtidiisa shirka Garoowe. shirka isjiid fara badan ayaa ka muuqda waxyaabo fara badan oo aanan sharciga dib loo eegaynin oo aan ku salaysnayn nidaamka dastuuriyan ee anaga aan qaadanay ee federaalka ama qaabka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay u wada shaqeeyaan sharciyan ayaa wax badan inay ka dhiman yihiin. dooda ugu badan ayaa ka imaanaysa dhinacyada maamul goboleedyada qaybtood oo ka cabanaya wada shaqayn la'aanta dhanka dowladda dhexe iyo inaysan fulin arrimo badan oo horey loogu heshiiyey iyo sidoo kale wada shaqayn la'aan arrimo qaybtood. cabdi barre jibriil oo baarlamaankii 9aad ee Soomaaliya ka mid ahaa ayaa rumaysan in dowladda aysan la imaanin siyaasad furfuran taana ay adkaysay in heshiis la gaaro. dowladda federaalka waa inay ixtiraamtaa sharciga dastuurka ay ku yimaadeen waa inay ixtiraamtaa jiritaanka qarnimada Soomaaliyeed oo eegaata in waxaan la wada leeyahay oo koox gaar ah ayna lahayn oo laga wada tashanayo masiirka ummadda laga tashanayo ilaa hadda wuxuu ka socon leeyahay oo wax walba cagtiidaya dowladda dhuxu ka socon kari waayay. shirka Garoowe ayaa dad badan ay u arkaan kii ugu xasaasisanaa uguna waqtiga dheeraa marka la eego kulumadii hore waxaana hareeyay arinta galmudug iyo sida xal looga gaarayo khilaafka u dhaxeeya madaxdooda. haddaba maxaa adkeeyay shirkan maxayse yihiin qodobada la isku mari la'yahay waa kan Professor Maxamed Xasan Doob oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka oo arintaasi sharaxaya. waxa ugu horeeya waxa waaye oo aan isleeyahay caqabad waaye dowladda federaalka ahi waxay rabtaa institutionadeeda inay shaqeeyaan. waxa kale oo iyaguna caqabad kale ah isteedyadu waa soo tashadeen mar haday soo tashadeen iyaguna qorshay meel dhigteen especially qaararka teeramkooda uu dhow yahay ama xilli xileedkooda uu dhow yahay oo iyaguna raba inay xilli xileedkaas dowladdu aysan ku faragelin. waxa kamid ah muxuu ahaay sheekada galmudug runtii waa unconstitutional. khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo soo jiitamayay tan iyo 2 sano ee ugu dambeysay ayaa hadba lahaa marxalad gaar ah waxaana murankan uu ragaadiyay geedi socodka dowladda iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa caqabadaha laga gudba la'yahay ee haatan taagan u arka in la hareer maray talooyinka iyo mudnaanta uu lahaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. haddii aanan baarlaman iyo xukuumad iyo madax isla socoto go'aan ay isla wada ogyihiin ama isla wada gaaraan aanan dowladii dhexe aanan la shirtagin ay noqoto madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii ama gudoomiyihii baarlamaanka waxaa imaan karo berito wax xataa keeni kara inaanan baarlamaankiina la qabin aan xukuumaddiina la qabin ay noqoto dowladda dhexe kaligeeda waxa iyada ay soo qaadatay oo berina baarlamaanka uu ku diidi karo. waa in baarlamaanka talada isaga maadaama aan dowlad parliamentarian aan nahay in macaamilka marka la doonaya hab dowladnimo in baarlamaanka la siiyo mudnaantiisa. Professor Maxamed Xasan Doob ayaa sheegay in ay muhiim tahay dhinacyada shirsan in ay xal ka gaaraan arrimaha lagu muransan yahay si looga gudbo kala fogaanshaha madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada u dhaxeeya. kow dowladda federaalka oo tanasulaad la timaado
maadaama ay mas'uuliyadda guud ayadu hayso laakiin haddii parallelism ay samayso ama barbaryaac iyo isla tartam ay dowladda goboleedka iska celi hadday gaarto waxaan u qabaa arrintaasi inaysan arrin aad u suubanahayn kow laba dowlad goboleedyadana waxaa laga rabaa inay si national u fikiraan waxay matalayaan waa ummadii Soomaaliyeed yacni caqabadaha rakaadiyay geedi socodkii adeegii bulshada waxaa la rabaa inay horumarka dalka ka fikiraan isteedadooda ka fikiraan si national u fikiraan waxa ay xaq u leeyihiin si constitutional ay u qaataan oo aysan noqonin caqabad aan saldhig lahayn waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaabka loo mariyo qodobada qaarkood waxaana dhinacyada shirsan mid kasta uu ku adkaysanayaa sidii uu u meelmarin lahaa mowqifkiisa hase ahaatee Cabdi Barre Jibriil ayaa ku doodaya in dowladda federaalka ay u ololeynayso sidii muddo kororsi ay u sameyn lahayd marka la gaaro xilliga doorashooyinka balse aysan suurtagal noqon karin waxaas horta mid lala yaabo ah oo dadka in la xasuusiyo ah 2016 horaanteedii madaxweyne xasan sheekh marba waxa leeyahay way ku darsanayaan baa suuqa soo gashay madaxweynaha hadda talada haya saxaafadda caalamku isugu yeeray meel kasto ku hadlay wuxuu yiri hadii madaxweyne xasan sheekh maalin ku darsado xamar waxa ka dhacaysa kacdoon shacab oo dhibaato keenaya ka dhacaysa marka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa inuu taageersadaa shalay hadalku lahaa waa inuu garowsadaa si kasto ay tahay shirka ka socda Garowe ayaa noqonaya kii ugu adkaatan iyo markii uu bilowday shirarka u dhaxeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore waxaana isha lagu wada hayaa go'aanada iyo waxyaabaha dhinacyadu ay isku afgartaan Saynab Abukar ay ahayd oo warbixintaasi nala socotiinaysa halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington wali wararka Muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye inta aynaan ka fogaanin warbixin ku saabsan aragtida dadweynaha magaalada Muqdisho ku dhaqan iyo sida ay u arkaan shirka ka socda Garowe ayaa waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste magacayguna waa Caaqil Xasan Cilmi Yahay shirka horta markii hore anagu waxaan ugu hanweynay si weyn anagu hanweynay waxa ka soo bixi doona islaan wax la isku raac waxaan laga bixi doonaa islaan tafaraaruqi maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe kala haystay hadda haduu ragaaday waxaan u arkaa shirkaas inuusan macno badan keenin haddii hadda wax ka soo baxaana wax macno badan oo dhaqan gala aysan noqon sababta waxa weeye wax inta la isku raagay oo la waday meel mar noqon waaye waxa ka imaan kara waa la yaqaan marka waxaan ku talinaynaa ummadii Soomaaliyeed oo dhaqankeeda nahay inay isu tanasushaan oo la isu tanasulo oo nin wuxuu ku dhagan yahay haddii garasho looga fuji waayo gumaad looga fujiyo hadii labadaba looga fujiyo intaan xarigu gooyin markii xarigu gooy lahay in la isu tanasulo oo aan xarigu gooyin oo la isu tanasulo waxaan ku talinaynaa madaxda nadiyaatihiin annaga idin dooranay ilaahay dartiis danle inta iska daysaan isu tanasula wax ummaddu ku farxdaan ha idinka soo baxeen anigoo Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Suldaan Beyle shirka Garowe waxaan u arkaa oo uu yahay shirkaasi wax Soomaali iyo shacab iyo ummadda ka qarsoon maahan wax ka soo baxaya oo xalaalana ma jireen qodob labaad waxa dastuur la'aan in la yiraahdo marka hala dhisa maamul goboleed xilligiisii dhamaaday sida galmudug oo kale mudaha lagu daro mudada yaa ku dari kara dadkii lahaa oo dhisay baa ku darsan kara mid kale maamul goboleedka ma dhisi karaan maamul goboleedyo kale iyo dawlad federaal maamul goboleedka dad baa iskale oo dhista waqtigiisina waa dhamaaday waxaana la rabaa bisha 6 cidii daraynaysa inay u soo dareerto timaado marka qodobada ka soo baxbaxaya oo dhan baa gacmo shisheeya oo Soomaali ahayn magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Saciid runtii waa dhabca Soomaalida maanta meel kasta ay joogto miisaankaas tirada badan meeshaas dadka madaxda ay iskugu tageen qoladii federaalka oo dhan ay tageen odayaashoodii maamul goboleedyadii tageen cid kasta waxay isleedahay maantay halkaasi waa rajadii ugu dambeysay ee dadka Soomaaliyeed iyo sistamyadii dhisnaa sida loo arkayo iyo waxa laga qabaa maantay meeshaasi in wax ka soo baxaan weeye aniga hadda sida waxay ugu muuqdaan iyo waqtiga tirada badan oo meeshaas sida macna darrada ah loogu luminayo waxay muujinaysaa rajo la'aan waxay muujinaysaa waxqabad la'aan
waxay muujinaysaa mas-uuliyad la'aan waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed wixii ay qabeen oo ay u qabeen dadka madaxda u ah oo mas'uuliyiinta u haya oo magaca u haya wixii ay ka qabeen ayay muujinaysaa inay bay tusinaysaa inay cidla yaalaan waxaan leenahay meesha ha ka soo laabanina haddiina Soomaalidan u hayn adeer aniga Ali Maxamed Faarax la yiraahdo Ali Seeko waxaan u arkaa shirka Garowe inuu yahay shir shaqadii dawladnimo iyo Soomaalinimadii ragaadinaya qaabkii la rabay in loo shirana aan loo shiraynin sababtoo waxa weeye shir haddii Soomaaliya loo qabanayo Soomaaliya dawlad bay leedahay dawladda ay leedahay baa laga rabaa inay iyadu shirka gudoomiso markii la shiro oo la ururiyo wixii aaraa iyo xog iyo cabasho iyo haddii ilaahay kuu roon yahay wanaag iyo xumaan intaba cidda faysalaynaysa ama go'aanka ka gaaraysaana waa madaxa Soomaaliyeed meeshii la rabay in dawladdii Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre ay shirka go'aan ka gaaraan waxaa moodaa in go'aankii ay rabaan inay gaaraan niman hogaamiye kooxeedyo cusub ah oo haddii ilaahay kuu roon yahay loogu talagalay inay dawladda farqo ama laama u noqdaan dawlad hoosana ah oo gobolladii ay gaarsiiyaan dawladnimada waxaan waa jaranjaradaasana loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay dawladnimo si ay u gaarto dhab ah ay ku socoto bismillaahir rahmaanir rahiim aqal muumagariig waa aqal Cabdiraxmaan Fiidow xaal yiri lugjiisa waa lagu socon karaa laakiin sharcigiisa lagu ma socon karo shirka Garowe dad mar isqiyaanay mar labaad isqiyaanay oo mar saddexaad isqiyaanay ma ismaamini karaan shirka ka horeey waxba lagu heshiiyay balanta la isaga bax shirka la ka horeey waxba lagu heshiiyay balanta la isaga bax shirka la ka horeey balanta la isaga bax hadda bal saxal isku aaminay sheeg maxal isku aaminay shacabka been loo sheega neeta hayata shacabku waa soo jeeda hatta shadaano ninki wixii u dan ayaga yaqaana waxa nimanka maamul goboleedyada maantay ayaga midadu gacantooda ku jirtaa waxaana ayaga mas'uul ka ah nimanka aqalka sare run hadii la sheega maamul goboleedyada aqalka sare matala maxaa wafti aqalka sare loo dirsan waay oo la dhigay waa shirkaas nooga hormara xukuumadda daruur sheegayso ay waxay ka jiraan dhabtahay waa la isqiyaanana meel ma tegayaan runtayna imaanaysaa kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo fikradahooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan shirka ka soconaya magaalada Garowe ee ku shirsan yihiin madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamul